Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhyaarey meel walba aad dunida dacaladeeda ka joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo saf tv fadlan haddii aadan channelka subscribe inoo saarin subscribe inoo saar haddii aad ila socoteen aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kusoo dhawow wararkeena maanta aan ku bilaabo ciyaaryahankii maalmahanba aan kasoo sheekeynaynay ee Arsenal ay raadinaysay waa Declan Rice ayaa lagu soo waramayaa xalay xilli dambe in Manchester City ay bandhigtay lacag 90 milyan ah. Lacagtaasi waxay dooneysay inay u bixiso lacagtaas 80 milyan oo horumaris ah ilaa lagu daray 10 milyan oo maaragtay gadaal ay ka bixinayso oo add-ons ah. Marka isla markiina way ku soo celisay West Ham waayo lacagta marka aad kala dhigto maaragtay aad isku fiiriso tii hore Arsenal laga soo diiday iyo tan waa un isku mid. Total waxay isku imaanayaan 90 milyan. Farqiga u dhexeeya ayaa waxay tahay Arsenal waxay lacagta u kala jebisay laba dhinac oo ah 75 milyan inay horumaris ku bixiso plus 15 milyan oo maaragtay add-ons oo gadaal ay ka bixinayso. Man City-na waxay samaysay 80 milyan ayay hormarisay halka ay dooneysay 10 milyan in ay maaragtay gadaal ay ka bixiso. Obviously Manchester City way ogeyd in lacagtan lagu soo celin doono waayo waxay un la mid ahayd 90 milyan ee Arsenal markii horeba lagu soo celiyay. Marka wax surprise ah kuma ahayn la yaab ah in maaragtay lacagta lagu soo celiyo. Hase ahaatee Fabrizio Romano waxa uu sheegay in Arsenal ay iyaduna markeedii ugu dambeysay ee saddexaad ay lacag bandhigi doonto. Warka waa cad yahay West Ham waxay dooneysaa way ogtahay inay 110 milyan aysan helaynin siday marka hore ay sheegteen laakiin waxay rabaan lacag ku dhow 100 milyan 95 milyan ilaa add-ons way qaadanayaan 88 milyan ilaa lacag add-ons way qaadanayaan. Marka waxay isleeyihiin marba haddii uu Declan Rice uu ku dhaafayo waa inaad ku heshaa lacag fiican oo ciyaaryahana aad ku keensan karto. Marka wakaasa Arsenalna isla weekend dhexdiisa ayaa la rajeynayaa in lacagta ay bandhigto iyaduna waa arki doonaa ciyaaryahankaas ma ku soo guuleysan doontaa mise. Already taageerayaasha Arsenal iyo kuwii Manchester City ayaa waxay bilaabayaanba maaragtay in ay leeyihiin waayo maxaa ciyaaryahankan 100 milyan loola daba taagan yahay ma ciyaaryahan alternative-kiisa bedelkiisa ma la raadiyo maxaa isaga 100 milyan loogu dhimanayaa hal sana heshiiskiisa ka hartay ma iskaga baxaan oo maaragtay Romeo Lavia iyo ciyaaryahankii Arsenal marka horeba ay raadinaysay Spain ka ciyaara maaragtay Real Sociedad khadkeedii dhexe ay raadinaysay may aado sida ay leeyihiin marka 100 milyan xitaa dad baa taagan uma qalmo. West Ham way ku dheelaysaa dadka oo waxay raadinaysaa waddo ay halkan sana ay ciyaaryahanka ay ku joojiso uusan meel ayaga uusan oga aadin waayo 100 milyan West Ham maanta waxaa uga qiimo badan halkaas sana oo Declan Rice uu u harayo oo maaragtay relegation uu ka badbaadinayo. Marka West Ham way ku ciyaaraysaa bay isleeyihiin fanska qaar dadka ma doonayaan ciyaaryahankan in ay iibiyaan. Marka ciyaaryahanka waa halkaas maxaad ka leedihiin akhyaaray Arsenal ciyaaryahanka waxaa aragtaan inay iskaga baxdo oo maaragtay ciyaaryahano kale Romeo Lavia oo kale inay saxiixdo inay khad dhexe oo maaragtay ay Caicedo ay raadiso maxaa ka leedihiin. Ciyaaryahanka waka halka ayuu marayaa sidoo kale ciyaaryahankii Timber ayaa isna la rajeynayaa maanta inay Arsenal jawaab ay hesho. Shalay waa kii bandhigtay lacagtii totalkeeda ahaa 48 milyan lacagadi 50 milyan ku dhow. Marka iyaduna ciyaaryahanka isna maanta ayaa la rajeynayaa in uu jawaab laga helo Arsenal ay maaragtay saxiixiisa ay dhamaystirto. Marka waa arki doonaa hadda waxa table-ka saaran waa labada ciyaaryahan oo Arsenal hadda diiradda ay saarayso inkasta oo ay kala dhow yihiin oo Timber uu ka dhow yahay already asaga lacagtii Ajax ay sheeganaysay 50 milyan almost loo gaaray 50 milyan oo 2 milyan kali ayaa ka dhiman lacagtii ay ciyaaryahanka ku rabtay.
45 milyan way qaadan kartay, 50 milyan way qaadan kartaa. Marka Arsenalna meel fiican ayayba u dhigtayoo lacag 48 milyan ay ciyaaryahanka u bandhigtay. Marka ciyaaryahankaasna maanta ayaan insha Allah rajeynaynaa warkiisa inaan maqalno. Wixii maaragtay war ah waa idinla soo socodsiin doonaa. Haddana waxaa idin dhaafaya sida nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ciao ciao.